shirweynaha ballaaran ee hotel Nayuu Burce magaalada Burco ku qabsadeen beesha Roble Axmed oo kamid ah beelaha dega gobolkani Togdheer ayaa ahaa mid ay kaga tashanayeen ayaha masiirka iyo mustaqbalka beeshaasi isla markaasina ay ku go'aaminayeen musharrixi uga tartami lahaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil kadib markii uu soo idlaaday shirweynahani ayaa waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay qodobadii ka soo baxay shirkan iyo waxyaabihii ay isla qaateen intii uu shirkaasi socday oday cali sugulle oo kamid ah odayaasha beeshaasi bisha 29 oo aanu ku qabsanay hoteelka Nayuu Burco shirka beelweynta Roble Axmed waxa ka soo baxay lambar 1 inaanu nabad gelino beelaha aanu wada naalo inay nabad geliyo naga helaan oo aanu nabadgelyada ilaalino lambar 2 waxa ka soo baxay inaanu ilaalino deegaanka lambar 3 waxa nooga soo baxay inaanu shaacino musharax aanu ka shaacinayno magaalada Saaxil ee aanu deegaanka u leenahay ee aanu ka mid nahay beelaha ka dega xagga bariga oo aanu ku leenahay saddexayd sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay caaqil cilmi caaqil salabaan caaqil ducaale oo kamid ah cuqaasha beeshaasi iyo qaar kamid ah dhalinyarada iyo odayaasha beesha waxaana hadaladoodii kamid ahaa beeshu way shirtay waana shiri jirtay waana shiraysaa shir dambana way leedahay waana shiri jirtay marka shirkeedana waa mid u khaas ah waa mid danaheeda gaar ah u khaas ah waa mid arrimaheeda dhaqaale u khaas ah waa mid aan cidna dureynayn waa mid aan cidna u jeedin sida odayaashu sheegeen waa mid aan siyaasadda kaga hadlayno waa mid aan arrimaha iyaga gaarka kaga hadlayno waa mid aan gudiyadayada iyo dhaqaaleynta ku kala bedelayno iyo odayaashayada sida daraadeed marka waxaan la socodsiinaynaa ummadda reer Soomaaliland dhamaanteed ama jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu anagu u tashanayno aayaha iyaga mustaqbaleed cidii dambana sida odayaashu sheegeen waan soo sheegi doonaa wixii mustaqbalka waxaanu ku shirnay shir albaabadu u xiran yihiin hadaanu nahay beesha Roble Axmed gobolka la yiraahdo Saaxil annagoo ka deegaan ah yaala oo laga helo 24 saaco waxaanu geysanay musharax aanu soo sheegi doono maanta shirka waxaanu ku qabanay oo bishu tahay 29 Abriil Nayuu Burco gobolka Burco marka gobolka Saaxil waa gobolka aanu u dhalanay waa gobolka aanu maydida ku leenahay waa gobolka aanu saddexda hayr ku leenahay waa gobolka aanu deegaanka ka nahay maanta xaq baan u yeelanay inaanu gobolka aanu maanta aanan meel uga kicin inta Roble Axmed ee degta deegaanka gobolka Togdheer Burco aad baan ugu hambalyeynaya shirka iyo wixii ka soo baxay hadaan nahay aqoon-yahanka iyo dhalinyarta beeshaas Roble Axmed waxaanu taageersanahay wax kasta oo wanaagsan oo ay beeshu soo saarto waxaanu taageersanahay musharaxnimada kursiga baarlamaanka gobolka Saaxil ee ay beeshu shaacisay ay shaacin doonto insha Allah ayaanu taageersanahay ayuu qoodiya afka dhalinyarada beelweynta Roble Axmed waxaanu taageersanahay murashaxa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera waxaanu ilaalin doonaa dhammaan qawaaniinta iyo shuruucda la dalka waxaan ku shaqeyn doonaa arrimaha deegaanka dalka Allahu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam halkan waxaan ka taageersanahay shirkan ku qabsatay beelweynta Roble Axmed ee gobolka Togdheer waa Qaadan Maxmed telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco.